حذيفة عبد وكاقا ساحب دي سماي وكسلامة سوري هذا ما شاء الله. سوري هذا ميرو بتوع عالم كجوكتا واسك دقبلو وهاك بلو فارح ولا الكيس معو كيك يا بشر بالله متانا حس قول صاحب كيس قرشو درس كيس كنا ولا ورو ناقر سيكو ساها جاب كج علقت مع الشوريه بناوين شنتا بقى بغوري ميرو بتوع عالم كجوكتا واسك دقبلو وها مقع مسكين لقى باها الا waxaan ka soo bilaabay meelan ogahay ila meelan ogahayna waa ku dhameeyay ma sha Allah soo dhawaada ma sha Allah qisha cajiib ah arin xasaasi waa arimo sire maalimahan focuskayga meel buu saaray horena waa u sheegay meel anigu duqbulo meel hadoo focus gareeyo he never focus meel kale ma focus gareeyo bilba meel baan focus gareeyaa ilaa targetka aan ka leeyahay arinta ka leeyahay ee ka dhamaato kama leexdo ma sha Allah in badan baa wax xiriiriyay in badan baa wax ka leexleexanayay دي كوي عايتما يا فلقادوري وسوا فلقادور عايتما حقيقة دقبلو تجي رنتي وبناك كيني دي دادكو معها فيري احمدو بي امام الكي صارتينو دبعتن بدن كيسان يعني وانوغا ما انتنا كسر كلاس فاك بايدين لو وداقيا وعرين هدا حساسي oo ay ayagu maamulka iyo Axmed Madoobe iyo groupkiisu iyo asagaba ay soo galeen banaanka la keenay waa walaashi iyo hantidu ka dhacay iyo ninkii ajuuraanka ahaa ee walaashi qabay dhibka ay isu geysteen iyo xaaladda xildhibaanada baarlamaanka iyo dekada garaysaa Kismaayo iyo elboor Kismaayo kor istaagaya maanta waa deeply la fagur waa classify waa sir weeyaan saasay isku kayso daba dhacaysa sooskaygana ma sha Allah waa security aad bay security yihiin insha Allah haduu ilaa yiraahdo اوكي احمد مدوبه iyo maamulkiisa ayaa wax ka sheegay yaan dhaliilay waa dhaxdaas awood bay isbadeen kuwa ku hareeraysan reerkiisa waxay isbadeen aqli aysan umada kala lahayn bay iska dhaadhiceen inay leeyihiin suuqi waxa la soo galeen waanu caayeenna waanu aflagaadeynna cidii annaga wax inaga sheegto sheergareeya ma sha Allah si gudbiye cidii annaga maamulka Axmed Madoobe wax ka sheegto waanu caayeenna waanu aflagaadeynna هولو نوعاس سوق سوقشتين اوكي لو ويك بي عايتمين لو ويك بي مقرساي وحي شيك كرشغن لكن دقبلو ستيل رياليتي وسي سعودا الا واسبدل وكوي ماذا مقالده كسمايه جوجين ماي الا اركو احمد مدوبه iyo maamulkiisa oo meesha ka baxay naaga badan iyo rag badan waxaan arkay qabyaalad ay dilootay oo qabyaalad ku taageeray oo reeraha ku taageeray in aysan qabyaaladu wax tareenin baan ku sheegay ninka seedigi qori u qaatay ninka walaashi qabo aadi dhigayso ninka seedigi Abdi Ahmed qoriga u qaatay ee walaashi qabe ee walaashi u dhax qoriga inta u qaatay magaraysaa qabyaalada ku bursaday ee walaashi magaraysaa qabiil darti uga soo tahriibiyay magaraysaa Kismaayo uga soo tahriibiyay iyo dulgaliya maxaa weeye Kismaayo waa mashaariic weey waa business weey أدر أجادين وحبك كم قبو مرحانا وحبك كم قبو قال جعلنا وحبك كم قبو غير كلام التاني وحبك كم قبان وبزنس وي بزنس كاس هو حاوي ودكدا هي إيربوركا هي دحوشوي هذه نجس ودكدا هي إيربوركا هي دحوشوي أسكري وحبك كم قبو وزير وحبك كم قبو شعب كلي قبيل كلو وحبك كم قبو reer kale tara waxba kuma qaba war sheer gareeyaa si sheer gareeyo si gudbiya gaarsiya Facebook maalmaha indhu isku istawrogay sheer gareeya ayadoo saata sheer gareeya si gudbiya regime change ba sameeyay
رجيم جنشي بان سمينيا وانا كل دقاقي وانا سمينيا وانا بدلميا وانا بدلميا نيروبي وهذا كسوغي هاي اسايا نيكي سردون كيستو اي خالش عبد الله الأورين قصدا بانقليا وحاربا سيدقن كعبيروك سلامة جي 6 هذا كعمين هفضان باش وانا فلارتا جي 6 هذا معرف وانا سعسان آديا لان داريال بوداين كده جي 6 صدرنا ممبر كده وسلام يادد بوسلامي قصدا بانقليا ان شاء الله هدو لا يرادو احمد مذوبي ولا شيش او يسكو ابئي يهين ولكن كلا هوي يهين oo qabyaalad kala hofeeri adduunyada waan arkay qisooyin badan oo ka sheekeynay waxaan kaloon arkay gabadhan ayadana madaxweynaha Soomaaliya la dhalatay ee la yiraahdo Idil Farmaajo ee Canada degan walaalkeedii ku dhigantay waan arkay waxyaabo badan bas ka jiro dhib malaha markaan salka gaarin waxa weeye maxaa jiro because Idil Farmaajo aaba kala waraa hey Ahmed adeerku waa ka samdaaraan tanabkas friso sit down right now go sit right now inta korka sit أحمد والله أنا عندي قريبين إلهي ديت عندي علس ويلكو أذركو يا ووي يا ويان مظاهرات برضو سوقات تقرص لكن عندي علم مش دبعت ده هرت عروتها هدية دشيت ما شاء الله أنا قلت كل عروب بدر وعد لي وكلا هوية لكن سكو أبون أنا قد لي بجرو فربضن بجرو ما شاء الله جي 6 هذه شقي أحمد ولا شيء ونيروبي دقن وحاجرت حالتنا كشكين دون إن شاء الله قصتنا كشكين دون أنت بدنا أيضا قصيصه أيضا ينك هذا قصيصه إيه الفرماجنا أيضا ما شاء الله من الحين الصومالية يلا الله طيب كوك عصت هاي حالة إذا وان ركيد ألقى كده إكسون دولة الصومالية هذا تاجرهم وحيوان بدروا يشكتها أنا كرة عسنين لكن هل ماذا يكسمين بجرو إذا الفرماجة هو يكلاد الشيء فرماجنا هو يكلاد الشيء فرماجة كويس حجام برو ملانيا أحمد الشوكولات كويس هويديين oo maamada ma jarteen dhashay maamada reecali wanaaga umaleeyaa reecali wanaag way maamada gabadhan dhashay Nairobi degan dhashay ee way ka xisaan halka markay marayso horta Kismaayo anigu inaan luqta la galaa rabaa insha Allah waa dhulkaygii macnaha meeshu dawlad kama jirto meeshu waa dhaqaale weey waa contract wax la yiraahdo weey mid wuxuu qaataa oo ku dagaalamaya eelboor ku dhisa mid contract uu qaataa eelboorka Amisom degan iyo Mareykanka degan ayay shidaal iyo u geeyaan suppliers u geeyaan qaar kale tam garaysaa dhuxusha iyo geeday soo gubtaan qaar doomaha keesadaan doomihii bay ka dhoofiyaan qaar waraabaha iyo ugaarta ayay dhoofiyaan garaysaa ee wadanka Jubaland lagu sheegay business weeyaan Ahmed Madoobe iyo walaashiis iyo qisad dheer oo aad si fiican u fahmi doontaan magaliya insha Allah haduu leeyahay marka intaana qisada galin idinkuna si u wareerin oo qisada aan uga dhaxbixin baa rabaa hordhaca barnaamijkayga marka hore inaad fahantaan seeraar ninka la yiraahdo iyo macallin maxamed ninka la yiraahdo waa isku reer waa isku heeb weey maalimo dhaweeto Ahmed Madoobe waa isku dhacsanaayeen waa tii seeraar waa dhaxdaashi intuu Voice of America wacday asaga intuu wacday lama wicin seeraar baa intuu wacday yu Voice of America la hadlay wuxuu dhaliil u soo jeediyay Ahmed Madoobe iyo maamulkiisa sir badan buu qarxiye Ahmed Madoobe degdeg buu ku orday uu soo cili dagaalka marka wiilashan hadda baxsaday ee ayagana gadooday ee kontonka wiil ee dalas qaarkoodna soo qabtay ee baxsaday yaan idinka dabgelin dadka ciidanka baxsaday seeraar macallin maxamed waa qabiilka waxa la yiraahdaa waxa u dhasheen ogaadeen waxay ka yihiin beesha cooliyahan bikay Ahmed Madoobe wuxuu u dhashay beesha ogaadeen Maxamed Suweer Ree Cabdillah u dhashay marka hore ogaadeen ahaan bay Kismaayo ku qabsadeen ogaadeen ahaan bay Kismaayo ku heysteen marka mashaariicdii iyo dhaqaalaha walaaluhu kala geeyay Ahmed Madoobe iyo walaashii waxa kala geeyay waa dhaqaale weey ee dhuuntooda magaraysa wixii marayay isku dhaceen way kala boodeen Ahmed Madoobe walaashiis Nairobi bay hadda qaxooti ku tahay Ahmed Madoobe iyo walaalkii kala tana qaarna Mareykanka bay ku kala kacsan tahay asagana Kismaayo ku kala kacsan halka markay marayso nimankan cooliyahan ee macallin maxamed uu hogaaminayo iyo seeraar afayeen kortay Jubaland hogaaminayeen iyo Ahmed Madoobe sidee ku kala boodeen waxay ku kala boodeen Bangalaya marka qisadii Bangalaya dhagihiina si shargareeya regime change baan wada Ahmed Madoobe igu taageera hashtag waxaad soo qoraysaa nin walba oo ku kacsan oo Kismaayo inuu isbedel ka dhaco rabo hashtag Kismaayo youth hashtag Kismaayo youth waa mudaharaadkanaga waa koorka secretka la isku garan doono waa hashtag Kismaayo youth hashtag Kismaayo youth waa dhalinyarta Kismaayo ya revolution kan iskale
وحاويان عبورنت وإذا كدل قاضي يطبلوا حقي إنه بنانك كينيا إن شاء الله قبيل والبيتاتين سرتوا بنانك كينيا arrimaha la qarqarnaya ee waxa lagu caburnayo noloshiina lagu dilayo inay dhaqaale tahay duqbulo banaankeena yes #soqor #smaya youth soqor #smaya waa halku dhaga dhalinyarta kacdoon doonka ee isbedel doonka ee rabo dadkan maafiyada ee businesska nala dul jooga nafsadanada noo dilayo ee dhalinyartanadii baabiyay looga dul qaadayo dhalinyarta baqina #SmayaYouth Ramadan فريسيا سيد اوكي هركا markay marayso aan kaga baxo Axmed Madoobe walaashiis waxay deganeed Nairobi 1991 kii Nairobi soo degtay halka markay marayso ya Axmed Madoobe walaashiis markuu wadanka uu qabsaday horta Axmed Madoobe iyo waa laba bahood weeyeen Sheekh Axmed Islaam adeerkay awowgii garasay laba bahood miya ama saddex bahood buu gursaday adi inta hadda qisadan ay qusheeso waa laba bahood waa bahre cali waraage iyo bah ma jarteen maamada way dhimatay Allah u naxariisto waa Axmed Madoobe hooyadiis weeyaan bahda reer cali waraagna iyadana waa carruurta Nairobi degan iyo gabadhan dhistay aqalka madaxtooyada ama guest house ka loo yaqaan dhistay weeyaan gabadhan nin baa qabay ma sha Allah ninkeeda magaraysaa way isku dhaceen waa kala tageen Kismaayo tagtay Kismaayo markay ay tagtay magaalada Kismaayo ay tagtay yaa waxa ay isbarteen nin u dhashay beesha ajuuraan u dhashay oo ka yimid Ingiriiska dhalasho Hollandiis haysto oo la yiraahdo Cabdi Axmed la yiraahdo yaa gabadhan isbarteen gabadha marka magaca walaalkeed Axmed maadaama uu madaxweyne noqday يا هنغوري يا دقالي وحبا كقالي مقالة دي بيجيس كجوكتي أحمد دوبي يا مقالة دي قبصنا لك مركي مرش يا ويلكن نكن الجوران سيدا عنيقو مركا الله يزقريني يا وحوش يري شو نكا مركا وحو أوتاق الجوران مقالة دي أوتاق وحاوي إنو كم من نقضة بارلمانكا اونا ترتمو قدوميها بارلمانكا جبلا نو ترتمو halka asoo qabqabadiis ku jiro yaa ina Axmed Madoobe walaashiis oo magaalada joogto oo garoob yay magaalada isku arkeen oo ayadana ma sha Allah halkaas fursadaha ka soo baxay iyo howlaha ka soo baxay inay ka faa'iideysatay rabto ninkii bay isbarteen marka waqtigaas Axmed Madoobe ilmaadeeradii oo dhan iyo walaalihiis oo dhan baa magaaladii galay Kismaayo galay markuu madaxweyne noqday ciidamadii Amisom baa soo degay ciidamadii Amerika degan hay'adii UNT baa degan مشاريع بدن ودكدي إلى برهدي بصوبحي غير علمي لوريا سو كذا شيء ودن واو ضبحين وحي تجين مجالدك سماي تجين بربوس الله لو ذكرني كمبنية يلا فرني نول بو حور بينو كقيب قاطو مشاريع ذاك سماية كسعتين وكقيب قاطو ورغدي لقرنا مركب جوانا ولا شيء إن كلبها عنيك سان مال كلبها بيحيين ويسكحوا مع لبضة به ناقت مع ماذا مجرتير مع ماذا الريع الوراق يا إسحميني باليري عروت الدلين آد بيسكو حمينيين مركل لبضة بهود عرورها اسكو ما يسفعنين وانا واحد جروي وانا أجن هاي وحالة جرتوي اسكو ما يسفعنين بهذا جمدنا أنا دكشة كينيو يا بهذا أحمد مذوبة وشافي محمد إسلام أحمد محمد إسلام يا جروب كلاوية أي ويس أرسلان مدحوريال بالنقدين دقالي قبصدين مراكب كيف تكامل كريستين ريلي استديان نيروبي كسبستين بهذا كلام مركب حقوق يربا يرى إسكايرا لكن مركب جمدنا مجيء ولي وأحمد مذوبة ولا شيء رك بدن بهنغوريانيو تطبدن باتشعل تطبدن بربينه وقد وادن هو ربدن بسكجري بلادي دقيست أحمد ولا شيء وحكوا قبطي أو شكامي نين أجورانه أو هولن كيمد أو اللي هذا عبد أحمد أو مقرس قويانه أو ربي إن النقضة قدوميها برلمان كجبل إنه النقضة أتر أحمد ولا شيء قرابه أو مقالة جوكتو أيوهري بربوصل كي يوحي مشاريع اللي هجاج سنة أيوم مقرس هاي قبل كعوي قبل ورقضاء وقري ورقضاء مقرس هاي بربوصل كيلو قد بني هاي هذا يضدك مقرس مركز مشاريع بزنس كي كنترتله رمضان فريسة ده بعد يركع مظاهرات وقت مقرس هذه فريسة هذا المغل شير قرايه سيق بيه فريسة هذا المغل والله يا أحمد مذوب ما تقبل بعدين رمضان أحمد والله أنا تقبل بعدين من فريسة لسه يا سنو مش كربهم يقولون كوسعرا شد فريسة داوا كاتوك هاي وروك هذه ويلي رو أووي هاي بعد ما ويا فريسة شد نوم بعدين أوكي داوا كاتوك هاي أوكي
Sit. Dawa cartoon card. Okay? Makasa. Okay. Okay? Don't move. وميرو أو وياه بعد ما يموت هذه يعني. شرقرايو شو قد بيه غارسيا بيش كلت غارسيا هذه. كوا عايتميو وصار ما توقتي دقبله ورديها تاي. لبدي ويك dadka caayishan way soo dhamaatay xaqiiqdii duqbilow oo meel u galay wallahi ka leexleexday inay si jiro labadii wiiga duqbilow ogaadeen ma tiid anu badiga si xanaajinaysan inaad heerkan gaarsiisaan mana soo noqod male ilaa sidii abdi ilay uu ka taga meesha soo noqod male wallahi beenno halka markay marayso yaa ninkan walaashi marka ayadana hungurigii reerka tolka galay ee lagu wada yaacay Kismaayo ee kontraktada ee laboorka iyo kontraktada Mareykanka iyo Amazon til wada qoray Kenyaanka wixii wada qoray ee UN lacagta looga qaadanayay yaa gabadhan ayadana hunguri ka galay maadaama ay wadato magaci Axmed muxuu ahaa Maxamed Islaam ay wadato yaa ayadana hunguri baran kala badan ay ka hayaan yaa ninkana juuraan oo wiil waale oo Cabdi la yiraahdo oo magareysay marka uu yimid inuu siyaasadda ka qayb qaato yaa gabadhii caawiyay wuxuu gabadhii marka si uu ugu kala kiciyo gabadhii wuxuu ku caawiyay proposal buu qoray dheer ما قرأت بروبوسال دير بو قري oo arintu waagtay waa waqtigii ay socotay weeye la dhihi jiray gabdhaha Soomaaliyeed hal la siiyo boqolkiiba 30 hal la siiyo siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo maamulka dalka laga qayb galay la oran jiray loo kaambi garay jiray waqtiga marka gabadhan 10 nin ayaa kambaniyo soo sameystay oo magareysay hay'ad aan magaceeda halkan aan ka cilaaminayn ayaa loo wada gudbistay proposalki markii gabadha kaga qayb gashay waxa uu qoray ninkan ajuuraan ee rabay inuu noqdo gudoomiyaha baarlamaanka Jubbaland ayaa proposalka u qoray gabadhii markay kaligeed halka ka soo sameysatay ee proposalka qortay hay'adii way qaadatay balaadii hay'adii ba qaadatay Nairobi waa loogu diray bahal kaleeto Nairobi markii loogu diray trainingkii iyo hadal ku guuleysatay waxa loo diray Geneva wadanka Geneva loo diray wadanka Geneva markii loo diray training soo qaatay adiga gabadhii dhiilkii markii hore wax yar wahaa maamadan Axmedow loote iska haysay Nairobi joogtay garaysa aad waxa afka loo geliyo dhiil $1 milyan oo dollar contract madax afka loo geliyo Jubbaland business kaas ka socdo aad ka qayb qaaday iska daa qabyaaladan iska daa qabiilka kuwii wada dhashay waxa soo galay gabadhii $1 milyan oo dollar contract yaa markay Geneva ka soo noqotay hay'adii madax u gelisay qarba gabadhii madaxa weynaaday garaysa sideen xaqiijiyo madaxa weynaaday maamiyar wax iskeed ogaadeen ma sha Allah Nairobi ka timid garaysa aad baa iyo taa wax garaysa aad aqoonteeda aanan gaarsiisnan heerkaas markii wiilka kale tan aqoon buu lahaa la yiri gabadhii markii halka fiirisay odageeda horeeta ay fiirisay tiri oo 20 sano qabo meel uu ka socdaano isbursadaan ay aragtay iyo waxay tiri oga warkii horena ma rabay tiri kii yaraay warqadaha 20 milyan $2 milyan ku keenay yaan u baahanahay bay tiri kii bay istiqaaladii u tukatay tirniyo namna kaaxatan alla nasiyay yani adiga iskeensiiyay $1 milyan kan ilaahay baa noo keenay namna kaaxatan bay ku tir wiilkii bay isku qabteen Axmed Madoobe marka arinta marka meesha ka dhawaqdeen u socdo iyo Axmedow iyo qabyaaladiisii iyo maafiyada Kismaayo fadhidaan idin ka shaqeynaa dhigayso gabadhii markii ay sidaa tiri ee budgetkii iyo contractigii iyo howlihii ay soo heshay yaa waxay tiri Axmed Madoobe walaalkay weeye waa ninkana intuu doonayo weeye ninka ajuuraan alla qabyaalad xuma meeshay maraysaa Kismaaydiisii markaas waxa la yiri walaalka ilan gabar garoobe hadii la guurinayo oo aabaheed uusan joogin oo hooyadeedna meesha aysan ka dhaweyn ninka bixinaya ee aroosayo waa walaalkeed weeye waa walaalkeed ninka aroosiyo ninka ajuuraan isaga mishanka uu rabay waxa weeye siyaasad kale uu watay isagana uu rabay inuu noqdo madaxweyne muxuu ahaa maamulka inuu ka noqdo gudoomiye baarlamaanka inuu ka noqdo si uu hawsha ku galana waa sheekadii magaraysa inuu seedil noqdo Axmed Madoobe saa markii hawsha maraysa Axmed Madoobe rag ajuuraane oo beesha ajuuraane boqortooy ajuuraan u dhashay ayaa magaraysa ergahaan Axmed Madoobe loogu diray Axmed waxa lagu yiri anaga ma rabno
dhiil iyo hunguri wax ma socodna waxaan u imaanay wali gabadhiina gabadha walaasha yaan u nimid inaad nasiisid ayaanu rabnaa nin axmedoobe oo madaxweyne uu diidi waaye inuu diido oo yiraahdo waa diiday way dhicweysay walaalkii mid Mareykanka ila degan oo Shaafi la yiraahdo yiri Shaafi oo gabadha bixi hala siiyo halkaasi macnaha ninka Juuraan ma sha Allah way u kala kacday gabadhina u kala kacday ninkii sidii baa gabadhi lagu sii sharaf leh ayaa lagu sii gabadhi wuu guursaday gabadhi cirka iska heshay magaranaysaa xagga Nairobi iska joogtay 20 sano uu qabay mid reeraha oo Maleeriya ma aqaan uu qabay beelaan ku daashay yaa mid Juuraan Ilaahay u kala kaciyaba gabadhi waxay noqotay most millionaire in Kismaayo gabadha ugu taajirsan Axmed Madoobe walaashiisa waxay noqotay the highest rank in Kismaayo powerful money everything magaranaysaa nobody can say nothing okay magaalada marka halka markay gabadha maraysa hakadii gal magaalada Kismaayo heed baa la kala qabsaday ila nin walbo ordayo anigan ordayo hatta interest oo ordayo me too running right now I am looking for interest every man running something oo ordayo waxa weeye he's looking for opportunity laakiin aniga inta badan waxa raadiyo waa Soomaalinimo iyo qabyaalada laga tago iyo inaad qof ku amar taaglaysay dheen heerkan aniga inaan haasa u hadlo aan qaabka wax u sheegay garsi Axmedoobe kuwa tolle kuwa qabiilkiisa sheeganayo ayaf lagaadii afna dadka ka laba week bay caytameen waasi caytama waxa doontaan na ku ballan baan waxaan ku qaaday Axmed Madoobe shirtiisa iyo liiga iyo maafiyada Kismaayo joogto inaan tan jilibka intaan u dhigto inaan banaanka soo dhigan ballan ku qaaday tiibana maanta si shirgaray si gudbay halka markay marayso kaadi gabadha markii la siininka halka hakad igu hay biskoodii gildo magaalada Kismaayo waa la kala qaybsay marka Axmed Madoobe he control everything every contract oo Kamberi magaaladaas mashaariic ka socoto وحاول شير كلهم no matter what إله من نقطة شامبوز قدام من نقطة إله ما عندما مريكا جوجو إيربورك جوجو ما لما بقولوا شامبوز أبى لما كارتون ما دو جيشت بيو جيشت أحمد مدوبة باسنتي بكلهم ولا خلقات مرك إيربورك وحو جاي وحال لو ديبي صدحني مد أنا قاعد سكريرنا أنا قاعد أقبله هذا خير بس لناي من عرب اللورني عليهم بوها من ده وحوها بيمال باش بيمال بوها ما لنا عبد الله وحلوري عبد الله باجود مركه كركو كيشت مركه بلادي ريست إيربورك مشاريع مركه ugu badan dhaqaalaha ugu badan budgetka ugu badan iyo contractor ugu badan waxay ka socday Éirborka because of Éirborka Kismaayo waxa degan Belgium baa degan Mareykan baa degan Israel baa degan Kenya degan Sierra Leone baa degan African Union baa degan UN baa degan waxaa waa sida xalana oo kale tawii waa xirada xalana ee Muqdisho ku taalo oo kale to sideedoo kale tawii waxaas oo dad oo degan Éirborka degan waxa weeye waxay u baahan yihiin biyo waxay u baahan yihiin dhismo waxay u baahan yihiin shidaal waxay u baahan yihiin wax walba u baahan waxaas oo dhan marka waa mashaariic weyn mashaariicdaas marka dad badan bay dishay dad badan bay iska horkeen halka markay maraysa ninka culyahan Éirborka wuxuu haystay Kismaayo uu fashuuqi seeraar baa la tuumba ugu jirtay Macalin Maxamed bay tuumba ugu jirtay tuumba la wada cuniyo la wada dhuuqi Axmed Madoobe walaashiis ayaa soo baxday marka balaadi dhageyst meesha qaska maanta ka taagay hay baan idin sheegay waana xaqiiqda jirto Axmed Madoobe walaashiis cirka iska haysaa Kismaayo timid wiil Juuraan bay guursatay oo rabo gudoomiyaha baarlamaanka inuu noqdo wiilkii iyo mashaariicii waa tii proposalka u qoray ee Janeefa loo diray dhiilkii baa u kala kacay gabadhii iska joogto sida ma xaqiijin kara sida laakiin la ishay gabadhii oo qorshaha hay'adaha kale u dhisto waxyaabo kala sameeyso afmadow iyo meelo kale ku mashquulsan oo howleed iska wato yaa Mareykanka dawladda Mareykanka ciidanka Mareykanka ee degan iyo CIA-da Mareykanka ee degan magaalada Kismaayo degan yaa Axmed Madoobe walaashii soo waceen reasonka u soo waceena waxa waaye ninka cawliyahan ee Éirborka haystay iyo ka aada khayran aniga isku reerka ahayn waxay controlayeen Éirborka dhan bay controlayeen waxay sameyn jireen delay bay gelin jireen balaadiniis Mareykanka waa smart ama American ama smart waxay sameyn jireen delay bay gelin waxay dalbanaa Amerikaanka wuxuu dalbanayaa 400 ama 40 foosto oo shidaal buu dalbanaya Mareykanka wuxuu rabaa inuu duqeeyo buraa muxuu ahaa meeshii ku dhaayo inuu duqeeyo iyo gada iyo la duqeeyl rabaa diyaaradihii iyo baabuurtii shidaal iyo hubkii loo baahan
nimankii elboorka istamarka loo diro si maraykanka contractiga elboorka dhanna ninka aad khayr ninka culyani maxamed seeraar muxuu ahaa macal maxamed iyo seeraar ayaa gacanta ku hay soo maraykanka cunay ku dhageen iyo hay'adihii meesha deganaa soo maraykanka way baareen waxay dhaheen so these guys when abuse garana they using the authority external who abuse garana we need somebody Ahmed Madoobe too close to his brother or his sister or someone or balkan kaas loo sheegay seedii Abdi Ahmed iyo walaashiis ina Maxamed Islam yaa liiri company stand the provider waxan dadka la provide gareeyo dhanba provide so that's the marka dawladda Mareykanka waxay la xiriirtay si toos ah ula xiriirtay Ahmed Madoobe waraa Ramadaan مظاهرات كده يا مظاهرات كده جورج مظاهرات كجورج فريسو سيريسلي شيت يا ليري باور قفله او ان رجل كغه hoos baxna u baan Ahmed Madoobe walaashiisa si toos telefonkeeda u soo waceen waxa la yiri sister waxaan u baahanahay qof supplier oo noo keeno waxaan u baahanahay eelaboorka noo soo geliyan u baahanahay Mareykanka dhaay so hay'ado badan oo kale badan fara badan baa degan airportka degan so Mareykanka wax degdeg u baahan because duqeyn badan iyo howlo badan bay sameeyeen gabadhi markay soo wacday ninkeeda ayay wacday wuxuu ku tiri dawladii ay soo wacday Mareykanka soo wacay qolihii airportka degan ay soo wacay waxay igu yiraahdeen kaalay no provide garee supplier no noqo okay walaalkeed bay u tagtay Ahmed ay tiri businesskayga inuu ballaartaan rabaa company kala toon soo furtay oo hay'adahan UNT iyo NGO-yada wax u geenayo yaa soo furtay tir shatiga halaysi shatigii bay soo dhameysatay xamar bay wax kale ka soo dhameysay dawladda federaal ka soo dhameysatay warqadaheedii waxay dhan Mareykanka u fududay si ay Ameerikaanka uga hoos baxaan bay rabaayeen raggan cawliyahana cunaha ku dhagan iyo ninkaan aad khayr ee elboorka joogo ee abuse garana ka hoos baxaan bir gabadhi markii warqadihii iyo shatigii wixii dhan loo soo dhameeyay within one month ay u soo dhamaatay oo dhan way timid maalintii dambeeto ayada caadi baajkeedii iyo clearancekeedii security clearancekeedii elboorka la siiyay tartiib bay dhaaftaa elboor gadaal bay gashaa way u tagtaa waxa la siiyay the biggest mashaariic baa la siiyay adriis Ameerikaanka marka ayaga control waa sirta anigu aan hadda ogaado weey the scandal the mgarasa source aan hadda ogaado weey ما بقولين بين الدولة المرايكا إيماش هتكتر. I have to know ويديني سنتر كم من الصوت اللي قصوا دورته العود كي يقصيه يربرسها. I'm gonna ask them what you guys do in my home back home كي محاكس ميسان what is going حق بنقوله وانا ويدين دورا هذا الببليك بنكو ويديني. I don't know what you guys doing in a Wamo district Wamo region وحي أمريكان كسرمين يعني ما كان هل كان أمريكا مرسي شر قري هذا يا أحمد مدعو لاشيس وحقصوا دعي the biggest deal أكسمايكر. What is the biggest deal of Kismaika صود عوامع كنت كده وحالي وحادث تأصيل كسو ورجسة إلى بوركا وين إكسمايو because أمريكان كوحادي بي الشباب مالو بسوقشوا الشباب أنت كسب بحلو وعلى صورة إن جرسة حويان كي سوقله إلى بورك سوقله يميلوا سوقله ماشي أمريكا كان سير بدن بكوها وحياة بدن بالشوم وحالي وحاد صور رجسة سيلقة إلى بورك سوري ده was والله عق بدنوي $1 million almost I don't know ماذا حاجة يا وريش أوكي قبضنا المركب وحال إسكت ده دفيري مركب هالكام مرة ساكت دقلي إنا قصة فات مرة قبضنا عركس كاس نيروبي دقنيت نينا قبل 20 سنة وإسكت دقنيت قبل روحية غير مالشة قبضي نيكي واسكود عن وحمية قبضي نيكي واسكفرتي وحي تمد أنا كسماية تمد وأوكل كعدي nimankii marka ninkan gabadha guursanaya ee hawshan iyo businesskan iyo mashaariicda galiyay qabiilkiisa waa ajuuraan beesha juuraan waa nin qurbaabi oo ka yimid Holland passport horan waysta laakiin deganaasho wuxuu degan yahay Ingiriisku degan yahay aad dhigis halka markay maraysaa ragii cawliyahan iyo markii hawshii soo baxeen elboorkii dhaqaalihii iyo business heliyan yaa yiri war gabadha yaa ka dambe waxa la yiri gabadha waxa qabo ninka oleenayo maalabu guursaal yiri waa occasion Nobel daro مالوا وحاجر سالي عبدي أحمد نك أوردايو قدوميها برلمان كجبلان أيها قودان مالوا تقرسو لوميري أو أحمد ولالكيس أيها سيبالين هذه الكيس أحمد ولالكيس شيء لمنك عليا وحناقي وحدهن أوكي مستر بلان كان كتم بيجودان إن البورك سوقش بكوس واجهرتو أنا قف وجادينه البور نو خبص ما أركن قف وجادينه نو ريبالك ما أركن so the main thing قودان واحد كتم بيه هوست كسوريحة ونكا شيشيها مقرس وسيده هالكوريا نكا شيشيها جوران يا ربا إنه نقف جنبيه مقرس هاوس عطو
اوكي نينكي احمد مدوبي جروبكي ماملكو وعي اوتوريتي هذا اسكال لو يرنيو البورك هذا مسؤولك مع محمد iyo rag baa back up gareena waa nin nin arab la yiraahdo oo markii dabada kada loo bedeli doono waxa la authority hada iskale baalka iskale ninki markuu wuxuu sameeyay inuu kaarta isticmaalo ma joojin karo businesskii shaqadii ma joojin karo wuxuu sameeyay markii gabadhii buumini hawsha noqotay ka taadirtay meesha milyaneer ku noqotay ninkeedana uu active u noqday nin karti badan oo meel badan siyaasadda ku jiro lacag soo sameeyay balaash soo sameeyay ku noqday yaa ninkii cawliyahan ee haystay eelaboorka adris ninkii cawliyahan ee eelaboorka haystay iyo ninkii aan khayr aniga isku reerka ahayn yaa kaarta soo deg waxay dhayn wanacsiinayna maxaa sameeynaa we gonna go back to the game kora ciyaarina war game ciyaarina hada gabadhan aan ka joojino contract aan ka joojino no dhano tolba isku imaanay waana ceeboobina ninkan waana seedigeen gabadhan madaxweyne la dhalatay hoosha ma isticmaal karo what we gonna do waxa sameeynaa we make them delay the process can delay garina maxaa dhacay system aan jirin ma soo saareen the whole people dadka aan ka shakinay waxay soo dhajeen gabadha shaqaalaheeda dadka baabuurta u wada iyo xamuulka u wada alaabta supply-ga u geenayo Mareykanka u geenayo yaa waxaan soo dhajinaynaa sirdoonka Jubaland waxay noo soo gudbiyeen in dadku shaqeeya gabadhan iyo company-gan u shaqeeyo in laga tuhmay oo baaritaan iyo su'aalo in la weydiilo baan so every day markii ay Mareykanka ku dalbadaan jiingada ay dalbadaan ee jiingadii gabadhan soo rarto airportki markay soo galayso security istaajina ee la keenaa waxa la baarayaa maalin iyo bar la baara maalin iyo bar soo Mareykankii wax hore uga carleen waxa waa raggan dhilay wax uga dhigay Amerikaanka markuu waxa leeyahay ma ogolin dadkan waa ka shakinay dadkii afka duubnaa al-shabaabkii waxba ku soo dhuumanayo Amerikaan oo kaalaya idinka soo imaada gate-ka airportka imaada kaala alaabtiinu gurto Amerikaanka ma rabaan in la ogaado sirtooda inay baxdaan ma rabo in airportka baabuurtooda lagu arko ma rabaan convoy-gooda waxooda la arko ma rabaan soo America way rajagta gareynaya saas aan kula soo noqonayna iska dhadhiciyo gabadhi markii intaas lagu sameeyay walaalkeed oo Nairobi jooga Axmed Madoobe ayay wacatay alla musuqmaasuq xuma walaalkeed bay wacatay waxay tiri walaal way soo siisay alla talaayay alla hoogayay wiilka yarka wiilkan gursaday waa wiilka maxad u bahdileysaan ragum baatihin ogaadeen dad xun baatihin waxa wiilka waa abuse garanaysaan wala naga fariiso wiilka maxad waa abuse garanaysaan maxad ma garanaysaa kan u sameeynaysan waay noocan u yeelaysaan maxaa sameeyaa soo kismaayo loo ma sinno soo elboorka loo ma sinno soo dadku ma wada sinno maxaa dhacay maxaa aniga kali target garanaya maxaa ay liigu keenaya maxaa businesskayga contract Jubaland waa business ar macna xaqiiqada weena ogaataa waa ma fi sarustawi markaas Axmedow xanaaqay iska aamusiirana dad sameeyay meesha macalin Maxamed iyo Seeraar iyo Cawliyaan iyo Axmedow iskaga dhaceen meesha soo ninkii Arab ahaa oo magaranaysaa Allah musta'aan Cawliyaan dadka haystay elboorka haystay yaa markii arinta dhacday yaa waxa dhacday in هل أرنو كلام كتير أنت أنا أرنت عن أحمد باصو وعيب نيك عربها أو هستي وحو هستي وحو صو وعينك اللي قرر جرس عبد الله باجون محا إبراهيم باجون وبيماله أما باجون ما قالنا يا سيدي أديك كوي هستي وحاد على مركب إن مركب أيضا مركب مرس أحمد وصو وحو أرنت خفيفي arrinta qafiifi u kaadi gabadha ninkeeda ugu dirna u kaadiya idinkuna qaraabta oo inta soo kambari iyo amisom baa degan oo UN baa degan oo kontratada sameeyo ninkan iyo waxaan ay horkeenin joojiye ma garad halka markay marayso Axmedow dar waa loo aamusay waa la daray Axmedow inuu u janjeero dhinaca Seedigi oo ah Cabdi iyo walaashi iyo hawshi ay bilaabatay marka aadiya shishan galay sigri markay hawsh halka marayso ya Axmed Madoobe soo noqdo wadankii ku soo waxa dhacday marka in Axmedow iyo gabadhi markuu ninkii kala kari waayay Axmedow uu qaatay the hardest decision uu niqad walaashi iyo nimankan Cawliyahan ninka hada khair iyo walaashi iyo Seedigi iyo garaysa family kala saarway Axmedow soo solve garay walaashi contracti ka Muuse wareejin ee wuxuu solve gareeyay uu arinta ka wareejiyay ninkii ahaa Cawliyahan ayuu ku yiri bedel baata warqadii bedelka loo keenay waxa ku bedelay uu yiri dakada weyn ee Kismaayo ku bedelay oo ku xigeen iyo waxbu ka dhiga malana okay nimankii macalin Maxamed ahaa iyo afayeenkii horeetay Seeraar ahaa ya Arabkii u tagay wuxuu yiri aniga maanta waa la bahdilatii u xumeed baa u dhacday meeshii sooska naga soo galayay meeshii saan inoo ahayd nin ajuuraane oo walaashii shalay Kismaayo ku baratay oo walaashii shalay Kismaayo ku guursatay oo siyaasad u socdo yaa anigi ma garanaysaa jilibka ii dhigtay uu ii dhaartay adigu de waa garanaysaa rag xintamay waa taqaanaa
ينمك عليان اسكو يسي نكي كلا تعيري طلع يا طلبلي ما أنت سيدي ويجي كسمايا قريسا ولا يقع حلكي ولا يقع بحد كتريسا ماشي أنا أمريكان دقيقة حقنا لكم بلي نكا مركا الكاسا يدين دافين نكا عرب كلينا عليان وحوي استيلا طبعا لبي طبعا كمبني أو أساق أوليه لكن بقول مجاعه المدردي سودي بتي أو كونتراكت والبقى كسو بحسه كسو بحذاء البوركا وأساق قادة جرا رمضان فريسيا كونتراكت والبور كسو بحذاء البوركا وقادة جرا حاجة مركا يمرش يا نمكي سرارها يا نمكي عوليهن وحراقين أحمدوبي قروا قطعين وربحاد عيالين وردكنا كلام بتبادلين ودك طلع نيكنا ذيرك قولنا قروا لاش نيكنا سيدي هالك مركا مرس أحمدوبي اللي وش ده وأركي هالكاس حريقي markii hore gabadhii taajir bay noqotay musuqmaasuqii hawsha dhan bay ka wada qaatay markii ay halkaas xaaladdu ay marayso Axmed Madow pressure-ka ku watay ninkii Macalin Maxamed ahaa ninkii Saraar ahaa nimankii ogaadeen nimanka dhow waxay dhaheen ninkan walaasha guursaday waa ninka ku socda xilkaaga dhageysta waa ninka xilkaaga ku socdo waa ninka kugu soo socdo walaasha riiso kale umuusa guursanin riiso ku walaasha u guursado waxa weey adigu ka taqaluus raba adiga howlo badan iyo propaganda odaga Axmed Madow markii waa isku dhaxyaacay wuxuu arkay in ma garanaysaay xaalad way bariga dhaxay marayso familkii iyo hawsha isku qasanto muxuu sameeyay marka wuxuu sameeyay doorashadii baa timid baa la yiri baarlamaanka ahayd ninkan ajuuraan wuxuu u socday uu rabay inuu noqdo gudoomiyaha baarlamaanka تيجي قدوميها برلمان كسوق قاطي أحمد مدوبا ويجري وحير نميه هذه جوارد إيجاد الجيا برشر كي ضد كنا وقعي سيدي جاب لجر تابع الويري سيدي جاب كم بالويري إجدجي وحير داي قدومية برلمان يهوشن إسكجار وحكوسينا يا كارك برلمان حكوسينا يا برلمان كاج إسكجبير هالك إسكجوك بيزنس كاج شقة هذه هوشة إسكوا هالك مركي مريسو يبهاشوا دبغض مرك باش أي نوقدي halka markay baashu maris ay baashu dhan isku dhaxyaaday waxa isku dhaxyaaday waxa la kala saari waayay familkii qabiilkii iyo maamulkii iyo shacab weynaha masaakiinta reer Jubbaland u dhashay ma garanaysaa dadkan ka war sugayay islaha dawlad baa idin dhalatay yaa la kala saari waayay meesha waxay noqotay business bay noqotay Axmed Weynu real estate samaysto seedigina kontrakteel barada qaato Seraari bal kale tan ay dhahaan anagu dekadii bal kale laga soo mar karo adig markii halka marayso ya jilku la soo dhigtay marka ninkii xilibaan baa laga dhigay walaashi ninka walaalkii qabay gabadha businesskaaga iska wada liir Nairobi iskaga noqon Axmed Owen nimanka culiyahaana jilku soo dhigteen xantooda bilaawatay waa meesha ay ku kala boodeen Seraar iyo magaranaysa Axmed Madoobe Axmed Seraar iyo Macalin Maxamed waxay yiraahdeen marnaba ma dhacayso mana accept gareereno mana sii jiraysa Jubbaland ilaa ninkan magaalada ka tahriibis ninkan iyo walaasha ilaa aad ka tahriibisid kismaayo ka tahriibisid magaranaysaa heshiis noqon mayno sababtoo aan ninka carab ahaa ninka culiyaan sababta u baadishay waa seediga dagti musuqmaasuq iyo Holland Axmed Owen markaas oo musuqmaasuq iyo hawsh ka carray hadar waxay isku dhaceen nimankii ajuuraan bay isku dhaceen ajuuraan waxay isla rabeen oo rabeen noqdaan gudoomiyaha baarlamaanka ee Jubbaland rabeen noqdaan marka ninka ugu cadcada ugu aqoonta badnaa ugu maskaxda badnaa wuxuu ahaa ninkan walaashiis guursaday waa Axmed Madow Jubbaland duqbalo daawanaysan Soomaa ya duqbalo si fiican baad u dhageysanaysan Soomaa ila shacabkan kale way iska islaamahan iyo shacabkan kale iyo dadka kale waxana ka hadlay they don't understand wax ay fahansan wax ay ka fahmeen male laakiin dadka sida fiican u fahmayo ee sida quruxda badan u fahmayo waa idinka weey ma garata ugu dambeyntii marka qisada idin dhameen maayo goos baan ka dhigay insha Allah marka halka mareysay nimanka culiyahan iyo ninkii seedigi ahaa iyo walaashiisi Axmed Madow mareys insha Allah baan dib ugu soo noqon doona halkaan kaga tagay marka waana idin dhameystir doona waana musalsal soconayo
ilaa maanta aan ka soo gaara maanta aan ka imaado ilaa aan magaraysa axmed madoobe aan ka waaya kismaayo istaagi maysa sirta waxa ay ku dhamaatay iyo dilka uu ka badbaaday iyo meesha uu ku dambeeyay axmed madoobe seedigi iyo walaashiis meesha ku dambeeyeen seeraar meesha ku dambeeyay waa life ka xiga weeye insha Allah iska dhameystiri maayo warbixinto dhan halka markay marayso axmed madoobe waan ka tagay intaana ka tagay baan horta hal arrin yara galaya ilkaadni nimanka horta Siciid Joogso yar la yiraahdo oo saaxiibanahay ba jiro Siciid Joogsade shalay ismaana baran daraadna ismaana baran Siciid Joogso wana khiyaare waanan tolnahay isku reernahay cabdi kuumadan islanaani asagu dhalinyar badan waxa arkay wax dhaliilayso ama wax ma garanaysaay aad iyo aad ma garanaysaay mucaaradayso mucaaradadayda ma aha shakhsi aanan xil weyn aan haynin shakhsi aan ma garanaysaay aad ma garanaysaay been iyo facebookina soo dhigtaan ma garanaysaay isku raac been Siciid Joogsade wana khiyaare asiga hadduu maamulku markuu si fiican u galana waan geli doonaa insha Allah laakiin inta uu shacabka yahay hadda ma garanaysaa hawshiisa ay socoto aniga ku jiro Siciid Joogso wana saaxiibanahay facebooka aad soo dhigaysaan waxaan aaminsanahay anoo duqbulowe ma garanaysaa inaan isla jaan qaadno #SmayaYouth dartan shakhsiyaadka hoose aan deyno sooskiinana ha fashilina ma garat dadka sooska idin siiyo ma garanaysaa warbixintii sirta idin soo gudbiyo lama soo dhigo public lama soo dhigo ha soo dhigina public aad Siciid Joogso aad baan ku salaamaya saaxiib waana insha Allah ilaahay waxaan ka baryaynaa inaan isu soo dhawaano ani adigu hadduu ilaahay kastoo hadda iga tagtay oo mucaarad islahayn oo duqbulow page la soo kicinay hadda laakiin inaad maamul ku birtay oo afayeen lagu magacaabay waan maqlay insha Allah hadduu ilaahay xilka ku fududay hadeeba ma fiidan si jirto weyn halka markay marayso qisada qaybteeda baartugeeda insha Allah waa live kiga dambeeto axmed madoobe iyo seedigi cabdi axmed iyo ma garanaysaa seeraar iyo macali maxamed iyo axmed madoobe iyo walaashiis iyo guriga hadda loo yaqaan guest house-ka qaabku ku yimid iyo qaabku ku dhismay waa baartuga sheekadayda weeyaan waa live kiga dambe ha sugina weyna shaah soo qaata ilaa axmed madoobe dib la gurigiisa taga ka harin maayo insha Allah hadduu iska qaban waa inta ka horeyso halka markay maraysaan waxaan aadayaa Nairobi maanta waxaa ku sugan oo jooga Nairobi axmed madoobe naftirkiisa iyo Khalid Abdullahi iyo madaxweyne ku xigeenka ahna ku shishimaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ninkii loo oranayay Mustafa Jawawa aan u bixiyay Jawawa u bixiyay yaa waxay ku wada sugan yihiin magaalada Kismaayo ku sugan muxuu magaalada Nairobi ku sugan Mustafa Cagjar markuu Nairobi yimid waxa uu la kulmay ninka haysta isli indagamuun la yiraahdo aadan baradu caale oo gaaris laga soo doorto midaan anigu isku reernahay Omar la yiraahdo aad kheer oo wajar laga soo doorto iyo wuxuu la kulmay aadan muxuu cali bino qorane oo governorka gaaris ayuu la kulmay iyo laba gabdhood Khadiijo ayadan laga soo doortay Ijaara Safiya ka wada laga soo doortay Ijaara adigu isku soo doo waxaan waa hal qabiil weeyaan iyana Soomaali waa hal ogaadeen waa hal tribe weey ma garanaysaa hal qabiil ogaadeen la yiraahdo ay u taalaam garas hadii la xiriir hadii la siidaay sidee business okay ayagu bas maxaa dhacmar axmed madoobe iyo Mustafa Cagjar isku fiicin aanin isku fiican ba umaleynay waa goreto maana waxaan umaleyn jiray they are good together they okay isku yihiin laakiin waxa soo ogaaday inay Mustafa Jawawa iyo axmed wajiye badan inaysan isku fiicneen ba soo ogaan oo isu bursanayaan la jifooyin hoose oo anigu aan inta badan aan jeclayn inaan ka hadlo oo maxamed suuri iyo reer warfa wax la yiraahdo bursanay Mustafa Cagjar raga kale toogaaday ko dhan uu la wada kulmay except axmed madoobe isla weynin ba ku jiraan maqlay oo ninkan uu yara yasaya ninka la yiraahdo Mustafa Cagjar yasitaan iyo quursi iyo waxba ku jiro oo ma garanaysaa adiga argosi iyo waxyaabo iyo howlo noocaas socdo oo reerka gudihiisa iyo axmed ma garanaysaa axmed xaali yiri ergu soo diray oo u soo diray Mustafa Cagjar uu ku yiri inaan la kulmo oo waliba ii yimaadaan jeclaan la sidoo ugu yimid raga kale ugu yimid Mustafa Cagjar ragii hadal fiican kama aysan qaadin hadal aad u xubay ka qaadeen axmed naftigiisa marmar in credit la siiyo waa fiican tahay arrin waxaa jirta dhawaanaha socoto oo la wado oo la qabanqaabinayo ninka Cabdi Maxamuud Cumar ahaa waa ninka kaliya hadda anigu garab taaganahay aad u taageero halka markay maraysi kaad dawladda nabad iyo nolol baadiya dawladda nabad iyo nolol weliga garab taagnaa weliga taageeray
weligii allah u dhimanayo qalbi dhagax idinkama leexan arrin kaloo dhacday idinkama leexan mucaarad idinkuma noqon xaalad kaloo jirto weligay dowladda nabad iyo nolol mucaarad kuma noqon laakiin this time mucaarad ba ku noqon doona insha allah haddii waxa si hadda wax u socdaan wax laga bedeli waayo diinta waa taa ka baxanoo duqbilow oo liiga bartay nabad iyo nolol oo wargaranaysa ay wadani Soomaaliyeed ahaa oo farmaajo khayro weligay allah garab taagnaa nolosheedina shil lacag aan ka qaadan nolosheedina laaluushan ka qaadan laakiin hadda mucaarad ka harsan weysaan guriyaha sida Axmedow kale intuu idin la soo galaan noqonayo waxa igu maqaale oo hadda maqlaya oo soo gaarto nin la yiraahdo nin sirdoonka Soomaaliya haystay oo madaxtooyada Soomaaliya joogay kulay madaxweyne Maxamed Abdullaah Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo magaranaysaa protocolkooda iyo magaranaysaa ku duway wada daawanaysan weligay iyo allah laba sano taageeraha ugu dheeraabana hal nin oo idin kamida weligay intuu soo wacitaankii ama waa mahadsantahay ugu modin garasho weligay inta ay soo wacdeen thank you waa mahadsantahay kana tahay waan ku ogsoon cid ugu tirmale garasho aadiyad laakiin right now macnaha waa soo raadsan doontaan waa la soo wici doonaa waa la soo raadsan doonaa waxa la doonaa duqbilow raal noqon la doonaa insha Allah dollar okay weligay mucaarad kuma noqon laakiin hadda soo waqtayna mucaarad ku noqon waqt sababta Fahad Yaasiin dhahan weligay soo laga hadlaayo la sheegayo meelaha la wada garanaysaa lagu dhagaya waar maanta jigjigu ku sugaya right now saacadan ay la hadlaayo jigjigu ku sugayahay qarash buu bixinaya TV-ga qaranka Soomaaliya kaamirooyinkiisa oo dhan buu soo wada ururiyay jigjigu wada keenay waxa la qufayaa qabriyo ayaa la qufayaa oo la faarfaaraya oo la sameynaya meel uu ka soo galay ma garan karo meel uu ka yimid ma garan karo dawladda marka nabad iyo nolol waxay noqonaysaa in aanu kaaba qabiil noqdo ugu dambeyn kaaba qabiil intaan noqdo oo soo istaago oo dhawraan ugu ogaadeen ma ogiyo wax kale tooy mara sababtoo baashi dhan baa nooc kale waxaan arkayaa aan dareemaya ma garanaysaa aad u dareemaya waxyaabo badan oo aan isqaban karin markaa Axmedow waxba igama gal Mustafa Cagdar waxba igama gal ninka maanta waxay galeen ku garab dhimanay waa ninka iga xiran weeyaan muwaadinka Soomaaliyeed ee xiran ee xabsiga ku jiro cid dhibaatayso ya wallahi billahi tallaah maanta enemy number 1 u arka number 1 enemy kuwa sanurka wareer badan wariya aad ma soo dhawaada ma sha Allah waa halka markay marayso ya waxaan arkay inay yiraahdaan Fahad Yaasiin oo ka tirsan sirdoonka xigeenka sirdoonka miya mustaliya sirdoonka Soomaaliya sirdoonka soo dhawaada ma sha Allah si share garay idinku bas sirdoonka Soomaaliya ka tirsan oo ma garanaysaa la yiraahdo Fahad Yaasiin يا وحكو سجايا right now عن عوضا هذا اللحظة اللي مع الجرة ساي صوصك أنا هذا وكل صورة هاي يسوع قد بين إنه كو سجايا مقالة الجيجو ونوضه قرصة عبد محمود عمر
oo garaysaa lagu aasayo oo xabaalaha wax laga soo qodqodayo wallahi been ma markaan tii dabagalay sooskayga aan weydiiyey wad Fahad Yaasiin maxaa keeni kara inuu jigjigato Fahad Yaasiin waxa lagu yiri waa nin reer Itoobiya waa nin reer Qabri Daare waa nin beesha reer oo xasan u dhashay baa lagu yiri ma garaysaa halkaas aanay wax ka socoto waxaan iri ma garaysaa xaaladdu bal baaritaan ma ku sumana laakiin dawladda Soomaaliya waligay iyo Allah kama laxan wallahi been ma rag badan oo waxa saad u wadaanaysa wax u socdaan idinka biyo diiday oo wada carray baan arka midnoo qaran oo dhan aaw they gone everybody is mu'arad it's only me duqbilow ma garaysaa dawladdan iska taageeray faa'iidana ku qabin ma garaysaa aanan waxna ka soo galin waxba nooga imaanin ma garaysaa respectiga xataa caadiga aan ku heshiin baan laakiin meeshan Cabdi Maxamuud Cumar ayar macana kambeynada iyo mudaharaadkan u sameynaya in ku jiro wad aragteen Allah Allah Fahad Yaasiin iyo asxaabtiisa Allah Allah wallahi wa billahi tallahi inaan banidi sheegin anigu duqbilow wali yiraahdaa fikirkaygan ka hadlaa ma garaysaa cidna ima kaan tarosho cidna ma garaysaa intay iibgaraysoon bay roolkeeda aan ku jiro dawladeeda aan ka tirsano aniga tafatiraysa hadalkayga mal dawladda Soomaaliya waan jecelnahay muwaadiniinta Soomaaliyeed inay qaarna soo deysho qaarna ay xabsiga lacag ku bixiyaan budget la soo qaado lacag la geeyo la yiraahdo qabriyaha la qodo ogolaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha ku jecelnaa 200,000 oo video oo duqbilow ku duubay oo soo ku amaanaya oo kula radiyallahu anhu kugu hayo ummadda Soomaaliyeed wanaagaaga tusay ya YouTube iyo meel ku jiro ma jeclaysan inaan xanaaqo on maanta xanaaqo on ka xanaaqo de dulmi socdaan arkaya taan xanaaqo intaan Facebook soo fariisto inaan afkaan shalay kugu amaanay in adeeg sida rag qaar intaan soo fariisto inaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qabiilan ka dhigo inaan ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre intaan halka soo fariisto aan idin aflagaadeeyo oo aan idin ku tufo oo magaraysa cadawgiina maanta badan wallahi wa billahi tallahi maalintan af kala qaado inaysan 200 oo qof i daawanayna bartan 2,000 oo qof bay daawanayso because I don't know why everybody against you magarakam everybody dawladdiina against you ku tahay everybody maamulkiina against ku yahay magaalada markaan tagnaa anaga la xaganaya si aan dawladii wasiirkaaba madaxweynaha yaa lagu dhagay qarrac leey laakiin arintan maanta aan maqlayo ay Fahad Yaasiin ka ogolaan meen mucaarad baan noqonaynaa dawladda ka hor imaanaynaa waxa weeyaan la fagaarka Axmed Madoobe hadda meeshiisa tagay yaa la tagi wallahi billahi til la tago yaa meel badan la tagi markaas kor istaagi duqbilow markaas ummadda maskaxda ka duldagi markaas wanaagii uu dadkii ka sheegay yaa fashil noqonaysa aadiya Fahad Yaasiin madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qorshaha iyo hawsha uu hadda uu ku jiro ha ka baxo wallahi madaxweyneyna beeshigin jigjigu ka wada hawl ka wada jigjigu magarasha qaras gareynaya ninkan shalay Cabdi Ilay ana ku dhagaraan maamulka markuu hayay ana 100 video ma idin daara halkan ka shidan oo ana dhaay tuuga ummadda laga qabto xukunkiisu bal lahawn laga qaado kaliya laakiin haday qabyaalad tagto soo daba gasho Cabdi la daba gala xabsigiisaas laga sii daba galo oo lacag lagu bixiyo oo la yiraahdo la daba gal leeyahay anu dawlad taageeri maadan ma dawlad qalb dhagax la dagaalantay aniga la dagaalantay magaraysa meel walba la dagaalamayso anaga sharaf noohin ciis noohin ummadii oo dhan ka wada carreen dadkoo dhan ka wada carreen maxaa aniga kaliya u reebay oo anigii sii gumaadays war Cabdi laga taabtay aniga Fahad Yaasiin runtan ku sheeg adiga groupkaaga iyo sirdoonkaaga wallahi wa billahi tallahi inaan Cabdi Maxamuud Cumar laga taaban nowadays maalmahan inaan Cabdi Maxamuud Cumar aan laga taabanin aniga dhinaciisa laga mar waa muwaadin dulmane oroma haysato xiran u doodayno oo mudaharaadayno u taaganahay inaan ka soo daynarno lacag intaad ku bixisid oo adiga Mustafa Cagdar saaxiibaan ahaan jirnay iyo xalanaan ku wada jirnay howlo noocaas intaad gashid inaad Cabdilaaga qabriyo loo oro Mustafa Cagdarna af baa kaga reey social media ku dumin been magaraysa been sheegman adiga iyo maamulka ka tirsan tahay aad un bay ga horkeenay hadaan mucaarad noqdana كل ريسو كاسو معارض النقد إلا أنا ودغالنا وما نقولين مقرسة هول كلنا وما نقول وحارة شعب كالصوماليين وقاتو دولتنا النادي أمنية عاصمة مقدشو حكوب بحشة نقالو شردون كالصوماليا الصوماليا Fahad Yaasiin حكوب بحية نقالة مقالة عاصمة الدول كالصوماليا حكوب بحية pay money for the soldier كأسكري كسي حسين وضع الشيء إثيوبيا اللي يرهدو رك توجو جواسيس وويل كلو ولا القتلة دقالمي لعك حكوب بحية حسين القبر سوقه يا بلايا سوقه هورن
wiilashannada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka qalabka nooshido ee Muqdisho joogo ee maalin walba qaraxa isu dhigayo ee niyadda ka dishay Fahad Yaasiin iyo groupkiisa. Pay those kids, pay those guys lacagta si amniga u ilaaliyaan. No way adeer macaan. Wallahi wabillahi tallahi Fahad Yaasiin doo kugu daba jira waan ku daba socdaa jigjigana sirta laba qariyo adeer macaan. magaalada jigjigo sirta laba qariyo. They don't know how sirta si loo qariyo iyo ma garanaysaa wax loo classify looga dhigo ma yaqaanaan. Soosko sidiisii oo wallahi billahi on la fatafatir shaatiga wadatiy meesha taagan hotelka joogtid ya saaca liigu soo gudbinayo minute ya iga message iska ka soo daba dhacay. waxaan codsi u jeedinayaa dawladda qaranka madaxda qaranka dalka Soomaaliya ee ugu horeeyay mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre anigu wiilkiini maana intaas ay garab taagnaa oo dhawaaqayay oo wallahi billahi taala aan ku hayay qabiil ma rabo reer ma rabo laakiin baashi say ku socoto aan wax u arko ee wax u dareemayo ee hadarna menin xiran oo aniga intaan iskaga baxay waxay kale nin xiran oo garaysa Soomaaliyeed aan u doodayo ismaalasmo ya waxa arkayna sirdoon ay ka daba yimaadeen iyo ciidankii Soomaaliya iyo dhaqaalihii Soomaaliya loogu talgalay Carabaha laga soo qaado dhan baa waxay yimaadeen jigjiga wada yaalo lafaha qodaay qabriga qodaay Cabdi Xabsi Aluusho ma soconayso sir badan oo hayo dawladdu ma rabo inaan howlaha sii gal ma rabo garaysa inaan qarxana ma rabo waxaan madaxda Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxweynaha Soomaaliya iyo inta qosasho aniga waan ka codsanaa ninka la yiraahdo Fahad Yaasiin hawshan uu jigjiga ka wado ha ka baxo hawshan uu jigjiga uu ka wado ha ka baxo wallahi beenma hawshan uu jigjiga uu Fahad Yaasiin uu ka wado uu ka wado ha ka baxo ma keenayso faa'iido ma keenayso waxay keenaysaa mucaaradad bay keenaysaa ilaahay ima tusaano duqbilowe oo boor wato oo dawladda 2 sano u soo dhawaaqay anigu dafisay raggan Facebook ka wada dhawaaqay ana boor wato waxa arkaysaa iska dhawaaqay wallahi wabillahi tallahi Minnesota iyo meel walba aan joogana waa wada mucaarad wey. They don't like dawladda nabad inoo la yiraahdo. They don't like it. I don't know why qurba joog oo dhan dawladdiina la dagaalamayso. Fahad Yaasiin you recruit you isan iga dhigin inaan xukuumadda nabad inoo la hor imaado ha ka baxo hawsha uu ku jiro banaanka ka isto waddankanaga sirdoonkiisa weeye sirdoonka Soomaaliya ka shaqeeya ha ku ekaada sirdoonka Soomaaliya ha ka shaqeeya Muqdisho amniga Muqdishona ha keena amni ha u keeno laakiin hadduu sii wado oo sii socoto sooska uu soo socdo I give him 48 hours basiria inuu jigjiga iskaga baxo 48 saacadood yan siinayaan oo duqbulo Fahad Yaasiin siinaya 48 saacadood class sirtiisa igu soo daba dhacdo baartuuga Axmed Madoobe aan soo wada dib baan u dhiganaya baartuuga Axmed Madoobe ee aan soo wada guest house ka sida uu ku dhistay iyo walaashiis iyo ninkeeda meesha ka baxeen dib baan u dhigan waxaan bilaabayaa season kale cusub episode kale cusub oo dawladda Soomaaliya iyo Fahad Yaasiin 48 hours kali wasta 48 hours kali haduu kaga bixi waay jigjigo uu ku noqon waay xafiiskiisa Muqdisho ku yaalo ee nabad iyo nolol hor u sii socon weyso oo ma garanaysaa ma sha Allah sidii aan ka rabnay iyo fiicnaanta ka rabnay sii socon weyso طبلوا دي فيسبوك كمان لي فهد ياسينو والله بين ما فرماجنا وجعلها خيرنا وجعل ولقي بان انت سو قربتينا ايضا كراسيس كنت كحبه سو تغنا لكن عبد انتو حبسه كسو ديني عيد اوغا ابييليو اي عيد اوغا لخليحاني عيد ان وجي ان كربه والله وبالله طلع نجر فور عيد اور هدا كغ بخي ويس مغاله جيجيج oo hawshan iyo musuqmaasuqan aad ka wadid iyo isku dirka reerka ka wadid magaalada jigjiga ka wadid iskaga dhaxbiyo faraha ka qaadi wish ballan baa ku qaado duqbulow inuu khayr iyo farmaajo iyo inta idin nacab inay idin heshiyeen inta idin nacab iyo duqbulow iyo khayr iyo farmaajo iyo duqbulow boor iska wati mikrofoonka dawladda soo qaada mikrofoonka dawladda iskaga kuwa inaan maalin walba week walba magaranaysaa anoo duqbulow iska mudaharaada inaan arag adaana kariyad garay you recruited all this shit and bullshit in dawladda mucaarad lagu noqdana suun waana siyaasi walba iyo madaxweyne walbana shakhsi noocaas kala fushay madaxweynaadii dhigayso ra'iisul wasaaraadii dhigayso mucaaradka idin mar walba dadkan idin nacayo idin ka hor imaanayo mar walba tana ugu dambeynayaan u maleynaya idin ka hor yimid maalin boqolo sii siibanaysa maalin boqolo sii cararayso maalin ba sii fakaraysa sii socoto kullay rag noocan oo kale un baa horta garashay ka dambeeyo dad idinku idin shaqeeyo oo meelaha hoose joogo iyo ma dadkeedu ku anoo idin jecel oo idin rabno oo idin riyaaqeeno oo radiyallahu anhu idin ku heno oo mar walba tum garasay dawladdanada ku riyaaqeeno ya maamulkiina shakhsi noocan baa nagu dirayo garas
waxaan bahad ugu dambeeyay malaynaya wixii midnimo qaran wiilashii nabadii nolol la baxay kuwan baa idinku dir carareen waa kuwa meelaha ka soo dhawaaqayaan ana ugu dambeeyay meelahaas iska wareegay garasay waxaan ku jiray nin la xiray oo oromo xiratay baan u doodayo on si activistnimo ugu doodayo mudaharaad u qabanay Fahad Yaasiin waxa la xaqiijinaya 100% inuu jigjiga ka dhamaan laaya dhaqaale qarash u geenayo si cabdi xabsiga loogu shidhaweeyo loogu shifogayo si dambiyaan jirin loo keeno waxyaabo noocaas ku jira wadanka nagina wuu ololaya muqdisho la isku dilay xabada dhac ka socota maalmo binto magaraysa amnigeeda faraha ka sii baxay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya si sharaf leh waxa lagu codsanayo arintan way soo noqoto maalmaha dhan ka aamusnaa Fahad Yaasiin وفراها كل جرو أسيء مصطفى عجرنا يشحبين ومقرن ساو سعود أنا مرة بين الدولة دي معارضة وكرد قريب وجعلها الدولة دي وضع كينو هي وجعلها هاي سومال نقول استوى وجعلها هاي مقرن ساي إنه عركها يا مرتبطة كنا وجعلها لكن بهدل أبيوس مقرن ساي لوج لسكتري هذا النول باللوك تماشى لقدر ما لوك كانوا للصبح يوم عبدنا أنا قال لي وتابته إلا وبناك أصبح أنا كنا صن معي إن شاء الله هدولار ما يأكل فودي سبب قادن مايو فهذا ياسين هدو هوش كوش يجرو والله مقالة دن من الصوت تجرا من يابس تجرا هاي مقالة أدوى وذا معارض وين تكان والبية مقاعي والبا أو تكتيد دقبلوا النبي نقولون تبيور يوم بي أفلقات دي عاي كجرا محد كنت هاجرس خير محد كنت هاجرس فرماج محد نبر الله كنت هاجرس محد سواء نوع وجه تا كجرا ينتفاعي إن لبي توك مات أنا نولب كيلو بيجرين العقد اللوشيني الربي إنه تغيير الدولة الأسمي الربي الدولة إلا جعلها الربي يا دتك كدرة ما قرأت دتك كدرة أنتو العقد الدولة كسوقاته أو الرئيسيرك يحلبانو كين حقوتها يا أقوم كنت الدولة who's the nigger كنت أقوم من دول بنادرك يحلبانه يا أوجي فرماجي خير أوجي كويري ويل كان يشقى شيء كان يشقى شيء سار يسمى الويل halka markay marayso hadalka wajoojinay hadalka faraha badan sheegta ba ka dambeeyo aniga 48 hour bashi Fahad Yaasiin hadii uu sidii uu ku soo galay jigjigo uga bixi waayo within 48 hour arintan uu ku jirana uu ku soo gabagabeyn waa faraha kala bixin ani waan burqan cid isoo cilinayso male muxaafadana waan aqaana si wax loo mucaaradana waan aqaana si wax loo muxaafado ee wax loo taageero ee magaraysa cirka loo geey waan aqaana si wax loo mucaarado ee loo mucaaradana waan aqaana magaraysa aad دولتاش هدي عن معارض كل نقطة كل فيها دياسين مقدمة سياسيين تا الدورة سوقات هكبحوا عرنتاشي حنتاس يعرنتها جرتو هكبحوا فرحنا كقاد إثيوبيا وي صوماليا وي عبدنا ومواطن حرنا وصوماليا وي صحاب سكجرو لقى مشي دبتيكر هذه بيدين سلام يا مول بنتو عالم كجوكتان انتي ما انت داورة شيء قصة قيبت هذا اللباد سيدا ويلكي أحمد مدولاش قوي ماشي كدن بيه guriga weyn magarasay guest house kala yiraahdo cid dhistay iyo qaabka lagu dhisay magarasay aadiyad iyo gabadha hooyada waxay tiri iyo hawsha meeshay ugu dambeysay ay ku dambeysay Cooliyahan iyo Axmed Madoobe iyo ninka ajuuraan waan idinka dabageen doonaa aadiyad baydii salaamiya wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh Fahad Yaasiin you have 48 hour ina jigjiga kaga baxd wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh